بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي هبون داود الملبو جوجتان halkan waa channelka Ceeldheer News kusoo dhawaada qodobada aan idin hayno kuwa ugu waaweyn maxay ka wada hadleen madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug oo kulan gaar ah yeeshay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo dalbaday in qodobada ka soo baxay shirka Muqdisho ka soconaya la hor keeno baarlamaanka ciidamada dawladda oo dagaal kula wareegay deegaano muhiim ah wararkii ugu dambeeyay dagaal ka dhacay deegaanka Tuqarraq ee gobolka Sool iyo qasaare kala duwan oo halkaas ka dhashay dawladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgal lagu dilay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sheegay inay dileen sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab oo ku dhuumaaleysanayay deegaanada dhaca maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobadaas ayaa daawan doontaan ee soo dhawaada jaalayaal ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la sheegay inay howlgal ka fuliyeen inta u dhaxaysa degmooyinka Berdaare iyo Owdiinle ee gobolka Bay howlgalkaasi oo ka dhan ahaa Al-Shabaab mas'uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadu ay toogasho ku dileen sargaal caan ah ka oo lagu magacaabi jiray Ibrahim Macan Cabdi Ibrahim Ganay isla markaana deegaankaasi dhibaato xoogan ku hayay sidoo kale laamaha ammaanka Koonfur Galbeed waxa ay warbaahinta u sheegeen in howlgalka intii lagu guda jiray ay gacanta ku dhigeen hub fara badan iyo agab kale ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa mararka qaar waxa ay fuliyaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab hase yeeshee waxa wali kala xiran deegaano iyo degmooyin dhaca deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo Al-Shabaab ay go'doomiyeen madaxweynaha maamulkaasi ayaa kol hore sheegay in Al-Shabaab uu kaga taqalusay muddo kooban inkastoo wali uu soo jirin dadaal ama weerar kala duwan oo lagu qaaday si deegaanada ay gacanta ku hayaan looga saaro wali Al-Shabaab kama aysan hadlin sargaalkan lagu magacaabo Ibrahim Macan Cabdi Ibrahim Ganay ee deegaankaasi sida aadka looga yaqiin isla markaana ka tirsanaa Shabaab ee halka lagu dilay dagaalkan oo geystay qasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Tuqarraq ee gobolka Sool waxaana u dhaxeeyay ciidamada maamulka Somaliland iyo kuwa la magac baxay dib u xiraynta SSC Sool Sanaag iyo Cayn dagaalka ayaa dad goob joogayaal ah waxa ay sheegeen inuu yimid kadib markii ciidamada jabhadda la baxay dib u xiraynta SSC uu hogaamiye Colonel Faisal Falaalug ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada Somaliland ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo Xagarey oo ka tirsan deegaanka Tuqarraq wararka ayaa waxa ay sheegayaan inuu jiro qasaare labada dhinac soo gaaray hase yeeshee dadka deegaanka qaarkood waxa ay warbaahinta u sheegeen in wali ay rasmi ah u helin qasaaraha dagaalkaasi ka dhashay jabhadda la magac baxday dib u xiraynta Sool Sanaag iyo Cayn oo hogaamiye Colonel Faisal Falaalug ayaa dhowr jeer hore waxay weerar gaadma ah ku qaadeen saldhigga ciidamada maamulka Somaliland ay leeyihiin waxaana weeraradaasi ka dhashay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Gedo ayaa waxay howlgal ka sameeyeen dhul miyi ah oo ku yaala deegaano ka tirsan gobolka Gedo oo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab howlgalka ayaa ciidamada waxaa la sheegay inay ka sameeyeen inta u dhaxaysa magaalooyinka Luuq Beled Xaawo iyo Garbaharey waxaana saraakiisha ciidamadu ay sheegeen in ay Al-Shabaab kala wareegeen deegaano lagu magacaabo Salbay Cilmacu Markabley iyo deegaano kale aad u badan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo oo howlgalka horkacaya ayaa dhankooda sheegay in ciidamada ay wali howlgalka wadan isla markaana ay ku gaari doonaan deegaano kale oo lagu tuhmayay in Al-Shabaab ay ku sugan yihiin dawladda Soomaaliya ayaa degmooyin ka tirsan Gedo waxa ay geysay ciidamo fara badan kuwaasi oo gacanta ku haya inta badan degmooyinka iyaga oo mararka qaar fuliya howlgalka dhan Al-Shabaab ayaa sidoo kale dhowr jeer oo hore weerar ku soo qaaday goobo ay ku sugnaayeen ciidamadaasi ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya halkaasi la geeyay ciidamadan ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waana ciidamadii uu diidanaa in halkaasi ay sii joogaan Axmed Madoobe xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya waxa wali ka socda shir u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo madaxda dawlad goboleedyada dawladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir oo looga hadlayo arrimaha la xiriira doorashooyinka shirkan qabsoomidiisa ayaa waxa hore u soo wajahay caqabado dhowr ah oo la xiriiray khilaafka dhex jiray madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo hore u diiday ka qaybgalka shirkii Dhuusamareeb 3 ee madaxtooyada Soomaaliya xildhibaan Cabdi Cali oo ka tirsan golaha shacabka ayaa qaba in haddii madaxweyne Farmaajo uu shirkaasi soo gabagabeeyo iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayaan
in ay wax ka bedel ku sameeyaan sharcigii ansixiyeen doorashooyinka ee baarlamaanka horyalay sidaas awgeedna uu dalbanayo in xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya la horkeeno qodobada ka soo baxa shirarka Muqdisho ka soconaya waxa uu sidoo sheegay in xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ay iyagu muhiim u yihiin jiritaanka dowladnimada dalka isla markaana qodobada la sharciyeynaya ay muhiim tahay in iyaga la horkeeno magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxa xalay ka dhacay fal la xiriira in uu nin kale tooray ku dhaawaco kadibna uu baxsadaasi yeeshay ciidamada boolisku gacanta ku soo dhigeen ninka tooreyda lagu dhaawacay ayaa waxa lagu magacaabay Maxamed Saciid Xaashi waxaana la sheegay in ninka tooreyda ku dhaawacay iyo isaga ay meel ka wada shaqeyn jireen isla markaana uu ka dhaxeeyay muran ku saabsan dhinaca mushaaraadka goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in ninka tooreyda dhowr meelood oo jirkiisa ah lagu dhuftay isla markaana haatan lagu daweynayo isbitaalka guud ee Dhuusamareeb taliyaha booliska magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in howlgal ay sameeyeen ciidamada boolisku ay gacanta ku soo dhigeen ninka kale tooreyda ku dhaawacay waxa uu sheegay in xaaladda caafimaad ee dhibane Maxamed Saciid Xaashi ay tahay mid wanaagsan waxaana uu intaa ku daray in wax allaale wixii ku lug lahaa arrinkaasi la soo qaban doono sidoo kale waxa uu sheegay in wax lug aysan ku lahayn aanooyin qabiil oo dagaal dhex maray labada nin oo shakhsi ay yihiin lamana ogolaamaha amniga si arrinkan ay jawaab kale uga bixin doonaan ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee Danab ayaa waxaa la sheegay in saacadihii la soo dhaafay howlgal qorsheysan ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Jubbada Hoose saraakiisha ciidamada Danab ee howlgalka hogaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka laga fuliyay degmada Jamaame ee Jubbada Hoose isla markaana lagu dilay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab gaashaan Ismaaciil oo ka tirsan Danab ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu dilay sargaal Al-Shabaab u qaabilsanaa qaraxyada iyo afar kale ka oo lagu magacaabi jiray Aadan Yuusuf Maxamuud Abu Zalmaan dhowr jeer oo hore ayaa ciidanka Danab oo ay weheliyaan kuwa Mareykanka waxa ay howlgal qorsheysan ka fuliyeen deegaanka ka tirsan Jubbooyinka hase yeeshee howlgalkii ugu dambeeyay aysan weli ka hadlin Al-Shabaab ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa ay xoog saarayaan sidii Al-Shabaab ay wada wareegi lahaayeen deegaano iyo degmooyin dhaca gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose Gado iyo sidoo kale labada Shabeelle ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ayaa dhowr jeer oo hore waxay iska kaashadeen weerar toos oo lagu qaaday Al-Shabaab sidoo kale ciidamada Mareykanka ayaa waxa ay fuliyaan duqeymo la beegsanaya goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab kulankan ayaa waxa uu ka dhacay hoyga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyaga oo ay ka wada hadleen labadan mas'uul arrimo dhowr ah madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo booqasho ugu tagay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa waxa uu kala hadlay qodobo dhowr ah oo ilaa ay hadda qaarkood warbaahinta aan loo shaacin ha yeeshee kulankan ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid gaar ah oo labada madaxweyne u dhaxeeyay kulanka ayaa waxaa wararka la helay ay sheegayaan inay uga hadleen labada mas'uul arrimo la xiriira shirka madaxweyne Farmaajo madaxda dowlad goboleedka iyo gobolka Banaadir uga socda Muqdisho sidoo kale kulankan ayaa waxa ay uga hadleen arrimo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka iyaga oo sheegay inay muhiim tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho la isku raacsan yahay oo is ogol ah madaxweynaha Puntland waa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa waxa ay Muqdisho u yimaadeen ka qaybgalka shirka Muqdisho uga socda madaxweyne Farmaajo madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo madaxda gobolka Banaadir madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxa uu si aad u danaynayaa in shirkan ay ka soo baxaan qodobo muhiim ah kuwaasi oo is ogol ah isla markaana doorashada gogol xaar u noqonaya madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa la sheegay in madaxweynaha maamulka Puntland uu ku booriyay in madaxweyne Farmaajo laga keeno qodobada la isku hayo ee uu diidan yahay qaarkood in la ogolsiiyo maadaama dalku uuna lahayn ra'iisul wasaare lama ogo sida uu uga falceliyay Saciid Cabdullaahi Deni hase yeeshee dad badan ayaa waxay tuhmayaan in madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu si aad u saluugsan yahay shirka Muqdisho ka qabsoomay hase yeeshee aan la ogeyn sida lagu qanciyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa labadaas waxa la sheegay inaysan wax saameyn ah oo buran ay ku lahayn marka loo eego madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland waxaana sidoo kale si aad aan loo loogi kareynin madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo go'aano adag qaadanayo Qoorqoor ayaa ku andacoonaya in dalku uu u baahan yahay ra'iisul wasaare isla markaana ay qasab tahay in la magacaabo madaxweyne Farmaajo ayaa hore loo sheegay in Qoorqoor uu diray ra'iisul wasaare hase yeeshee xubnihii uu soo bandhigay uu diiday
lama ogo sida arrinkan uu ku soo afmeermi doono ha yeeshee shirkan ayaa laga filan karaa qodobo muhiim ah oo la isku raacsan yahay warkii oo aad ka daawanayseen Ceeldheer News khiyaari waa naga inta waad ku mahadsantahay daawashadaada